حفردان مدة كجرا إلا الله يتمسك استحي تمسنا كجرا حفردان عروضة يجود إلهي إلى فوق قار سكولو كجران قار بوكسي كجران فان إلا شن إلا لعب هذا مفان تاني أنا مركب بدنا وحق فكرة بدنا مركب دقينتا إن سفي عنا أو شقيستو وراسي ما لير إن على هذا سي مركب بدا دبالة بدنا أي كينتنا فنيوم حفردان كله ماسكة دتنا ما فانسين هاي دتنا ما فانسينه ولاني وحق يرجلنا دتك فانسينين حد إني فهمان دتك فانسين نوي وكجران بدت بدنا أجر ماشان كنول بدنا دت بدنا كنول إلهي نوحيده haddii dadka qaar ay xeebaha u tagaan subax kasta jimicsi laakiin dadyo kale ayaa jira oo ay noloshooda ku tiirsan tahay kana waa Cabdinaasir Cali Muudey waa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada xebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kaasi oo ay noloshiisa ku tiirsan tahay shaqada kalluumaysiga Cabdinaasir ayaa ku shaqo tagay dooni nooca matoor ku shaqeysa oo isagu leeyahay taasi oo maalin kasta uu ku galo badda si uu uga soo jilaabo kalluunka uu ku tiirsan yahay noloshiisa iyo tan qoyskiisa haddaba bal marka hore haynoogu warramo sida uu shaqada kalluumaysigu ku bilaabay iyo halgankiisii ugu horeeyay nolosha والله صاحب معاني وما شاء الله حفردان مدة كجرا إلا الله يتمسك استحي تمسنا كجرا حفردان شقدان كلية أكو إن فرتوا يرانتي إلا هذا كل حجرا عشان يتمسنا يكبدنا كل حجرا واقرتay marka sidee ayaad ku gashay shaqadan marka ay tahay والله صاحبني والحمد لله رب لها ما هدله إن شقدان مركا قلاني ووايراي أنا ويرا شقدان بلاوي إن شقدان كو كمان كملايا كبلاوي أنا ملاي وحق شقينا كديب هذه وشقادان بدأ وبدشتي إلهي وفودنا الحمد لله diyaarinta qalabka kala duwan ee kalluumaysiga sida doomaha hubinta shabaagaha iyo ururinta qalabka muhiimka ah ee kalluumaysiga waa qayb ka mid ah diyaargarowga dadka kalluumaysatada ah haddaba Cabdinaasir sidee ayuu ku bilaabataa shaqadiisa maalinlaha ee kalluumaysiga والله مالك يجي شقوات سيدي أو كرسوحي واحد مركب بدأ آدايو ومعناه دور شقوة بدأ مرنا شايدة لجيدة مرنا محاواي وشباقة لجيدة دور نوعهم فهمت هذي حتى حلي أنا أكو جرنو فيلا لجيدة سواحي مركب بعيس أو كل سدح روح أسكور عيسين إن فيلا قادنيسين بدأ سال هذا بربريس الله كرا بدأت وقرنان هذي وحي إلى مركز كاسوسيا كلا سوق حسا marka shaqadaygaas oo kale ma ka waran qalabka isticmaasho iyo waxa ka caawinaa kalluumaysi tarto والله إنيو الحمد لله ورتنيو وحتى أني عاوي مارك لك أنا إسك عاويو وحبتك أدي لها أنا سوقته أدي شغال نقطه أدي فيلا بدأ أكو أدي لها أنا نقطه أدي موتورك وحي أنا قطعني لا إسك عاوي الحمد لله qalabka ay isticmaasho bal wax nooga sheeg maxaa kamid نيو أدي دا استعمالنا سو بدأ وقت وما مر شباقة لجيدا مرنا فيلا هذا هذا دا استعمالنا فيلا واي فيلون كاد سيبوا درتك كده بدأت كأجرنايو فيلا سديتنا جرتو فيلا لحدنا جرتو فيلا سجاشنا جرتو فيلا بقول اللي بعدنا جرت ساسلو كل استعمالات مر بالسيوا ملاي واقرتay shaqo walba oo la qabto waxay leedahay caqabado u gaar ah balse shaqada kalluumaysigu waa mid ka mid ah howlaha ugu adag uguna halista badan ee uu qofku ku shaqeeyo qofka kalluumaysatada maalin kasta wuxuu wajahaa halgan adag oo ku saabsan badweynta jawigeeda isbedbedelka badan ee nolol maalmeedka aan marnaba sahlanayn waa sidee halganka badda iyo caqabadaha lagala kulmo shaqada badda niyo aad iyo aad oo ay ka shaqo adag waayo shaqada badda waxa waaye ugu soo orod ma shaqo aad iyo aad u dhib badan ma fahantaadi bal marka qaar maxaa waaye fiilo yar haysataa malaay waxa arkaysaa 200 kiilo gaar 300 kiilo gaaray afiiladaas qaadanay soo waa nafa ku jirta mogtahay naftaasna waa ogtaa markii xanuun uu gaaro waxa dadaal badan u baahan tahay juhdi u baahan tahay marka waxa dantu wuxuu ku kalifay xafradaada xoog kaliya ma ku keeni kartid in xafradaada u kaalmaystid balkan in motorka iska dimbisid in si tartiib fiilooyinkii waxa 100 mitir mar arkaysaa fiilo 100 mitir 200 mitir abad ku shubay shaygaas uu ku daalo macna markuu daalo shaygaas waa keeni kartaa laakiin markuu careysiyo ma keeni kartid marka xafrado badan u baahan tahay dhalisaale marka halkan ka baxid ilaa aag intee leeg aag gartaa oo aad kalluumaysataa niyo wallahi yarta laba siyaabood waaye hadda sida shaahid oo kale marka hadda aadayo waxaa laga yaabaa aagaan dekadii iyo meelahan inaad tago laakiin mar waxaa dhacayso 40 meel oo kale inaad tagayo 50 meel ama laga doonayo soo tataa meelahaasna riski waaye riski meesha ugu dambeysay waaye 40 meel haddii doonku ugu qalibanto oo adiga haddaa jaakad dabaashana wadinaa laga yaabaa 3 ruux aatiin 3 ruux lagu isku raacsan tahay jaakad dabaashata inaa wadinaa laga yaabaa marka meelahaas oo kale haddii doonku ugu qalibanto ama xaalad adag ku gashid iyo waxa waaye ilaahay ku arooriyo ilaahay ma fahantahay waa tagnaa xilliga laakiin wili ma la gaarin laakiin waa tagnaa badanaa meesha oo badanaay xilliyada aad fogaataan waa xilliyada badad badxirna ka soo baxnay bish 9aad adi 20keeda iyo wixii ka sii dambeeyay bish 10aad ilaa 11aad shaqo tagaana anaga markaas meesha rabno waa tagi karnaa soo badda markaas kalsooni ku qabnaa waa diginta ma fahantahay xagaay aad ka soo baxnay waxa waa deer la garaa deer waxa la xilliyada kulaalka laga wadaa xilliyadaas badda oo sii digay maalinta ka dambeeyay badda 9aad bish 10aad ilaa 11aad ilaa 12aad badda way digay wixii ka dambeeyay hadana cilmo kala bilaawanayso dabeelo kala bilaawanay marka 3 bilood 2 bilood ee fuunta ka faa'iideysanayna
cabdinaasir cali oo ah aabba mas-uul ka ah 5 ilaa 6 carruur ah oo dhalay ayaa ku maareeya nolol maalmeedkooda shaqada kalluumaysiga. wuxuu ku dabaraa dhammaan baahiyahooda muhiimka ah sida waxbarashadooda, caafimaadkooda iyo cunnadooda. wuxuu sheegay in shaqadan kalluumaysigu ay si weyn uga caabisay daboolista qarashaadka qoyskiisa, islamarkaana ay u noqotay tiirka ugu muhiimsan ee uu ku sii wado nolosha qoyskiisa. alxamdulilah brada, alxamdulilah wuxuu ilaahay isii marka saaxibkey. alxamdulilah saaxib waa ka dhaqanaa saaxib. alxamdulilah walaad ilaahay waa isii brada. alxamdulilah saaxibkey waa alxamdulilah noloshii saaxib waa ku qanacsanaa saaxib. xaalad walba aad saaxib waa ku qanacsanaa noloshii. way carruur tirada intee leegiina noloshooda ka maaraysa hadday noqoto waxbarashada, waxay cun lahaayeen, dugsigii dhammaan. wallaahi yo alxamdulilah saaxib hadda kuleeyahay waa carruurda ay joogta ilaahay ilaafo. qaar iskuulle ku jiraan, qaar dugsiga ku jiraan, fahant ilaa 5 ilaa 6 brada ma fahantaadi. alxamdulilah saaxibkey. cabdinaasir bulshada ayuu sheegay inaysan si buuxda ugu baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay ka faa'iidaysiga kheyraadka badda ku jira, isagoo tilmaamay in baddina ay tahay il dhaqaale oo aad u weyn oo kor u qaadi karta nolosha bulshada iyo tan dalka. sidoo kale dhallinyarada ayuu ugu baaqay inay tijaabiyaan shaqooyinka gacanta iyo xirfadaha farsamada halkii ay sugi lahaayeen oo keliya inay wax ku helaan shahaado. wuxuu carabka ku adkeeyey in xirfadaha noocan ahi ay dhallinyarada u horseedi karaan shaqo abuur degdeg ah, islamarkaana ay yarayn karaan shaqo la'aanta baahsan ee jirta. niyow alxamdulilah horta xirfadan kalluumaysiga dadna waa fahansan yahay, dadna ma fahansano. kul aniga waxaan ku dhiirigelinayaa dadkaan fahansanaynin hadda inay fahmaan. dadka fahansanna wayba ku jiraan, dad badanaa jira meeshaan ku nool. badan dad badanaa ku nool ilaaweyna waxay dheh inta ilaa muqdisho ilaa marka badle laga shaqaynaamo dadaa yareenna ku nool, noloshooda ku qanacsan yihiin, nolol maalmeedkooda waa ku qanacsan yihiin. ma fahantaay. alxamdulilah niyow maxaa 100% waa aaminsana niyow, aad iyo aad oo aaminsanahay. waya adiga marka la eego qof dhallinyarada tahay, dhallinyarada inta badan shaqo la'aan ay ka cawataa. qaar waxaa jira shahaadooyin iska wata oo aan fiirinin dhanka xirfadaha iyo dhankaas inay muhiimad gaara leedahay. dhallinyarada si gaara maxaa kula talinaysaa maadaama shaqadan ay nafci fiican leedahay? wallaahi niyow qof walba oo dhallinyarada waxaa kula talinaa soo dad waxa way soo barteen ma nina waxbarasho laga soo bixiyay 5 sano 4 sano wax soo baranayay soo juhdi oo qofkaas laga soo bixiyay waxa laga yaabaa ninka inuu niyad-jabo soo wuxuu qiimeynaa qofkaas wuxuu markaas uu soo bartay natiijada inuu helin. marka aniga waxaa dhilahay saaxiba isdiibin hadii Afrika joogta brother fan Soomaaliya joogta qaab walaal qaab u shaqaysan leed, hadii bad aad shaqayn leed, hadii bajaaj aawad leed, hadii faryaamo aan naqan leed, hadii fuundi aan naqan leed, muhiim waxa brother noloshaada inaa maaraysid waa. ugu dambeyntii cabdinaasir ayaa codsaday in laga caawiyo dhinaca agabka shaqada, gaar ahaan lagu caawiyo dooni dhaata tan uu hadda ku shaqeeyo. waxa uu sheegay in haddii uu helo dooni casri ah oo awood leh uu samayn karo wax soo saar ka badan kan uu maanta helo, taasoo sare u qaadi lahayd dhaqaalaha qoyskiisa iyo kan bulshada uu ka tirsan yahay. sidoo kale cabdinaasir waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey mustaqbalkiisa, isagoo sheegay inuu doonayo inuu horey u sii socdo islamarkaana uu gaaro guulo waaweyn oo uu kaga miro dhalinayo shaqadiisa kalluumaysiga ee uu jecel yahay. qofku waa jecel yahay wax walba in laga caawiyo waa jecelahay. maanta dilid waniyo gaadiidkan waa ka bedelaa, gaadiidaas ka macquulsan oo ku siinaa waa soo dadahmi kaliya ani aan leeyahay in gaadiidka haddii li awoodi karo, haddii gaadiidkan aan liiga bedeli karo ma fahamtay, ama dhaqaale yar hada qofka diya macna aadayniyo waayo maanta waxaan qabo waxaas ku qabso qasab isbedel waa keenaa. shaygaas ka muhiimsan ma shaygan ka weyn.